laamaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta warbaahinta u soo bandhigay 3 eedeysane oo ay ciidanka amniga Jubbaland soo qabteen kuwaas oo loo haysto kiisas la xiriira dilal ay geysteen sida ay boolisku sheegeen. eedeysanayaasha kala ah Cabdi Maxamuud Makaawe ahna dable ciidanka Commandos Danab iyo sidoo kale dable Bakar Xasan Jimcaale oo isna kamid ah ciidanka xoogga dalka qaybta 43aad ayay laamaha amniga soo bandhigeen kuwaas oo howlgal lagu soo qabtay waxaana ay u xiran yihiin kiiska dilka Allah u naxariistay dable Siyaad Maxamed Cumar oo 22 November lagu dilay magaalada Kismaayo. marxuumka la dilay ayaa kamid ahaa ciidanka amniga Jubbaland. eedeysane Bakar Xasan ayaa ka sheekeynaya sida falkaasi uu dhacay isagoo sharaxaya qaabka uu dilka u dhacay iyo kaalintii muuqatay ee uu soo ku lahaa. oo agteedii joogto waxay dhaheen qoriga dhig markaasaan booday in dhinaca u booday qoriga dhig markaa dhahayo aan booday hal xaba ayaa dhulka igu dhufteen ka bacdi xabadii markuu maqlay saaxiibkayga ayuu soo booday musqushu ka soo baxay qorigiisu markuu laacay 2 xaba ayay ku rideen ka bacdi ani hal xaba ayaan dhulka ku dhuftay waa la kala booday xabadaha isku dhaceen midkii saaxiibkayga uu booday guduhu galay asagana xabadu soo daadiyay anigana xabada daadiyay iyagana xabada soo daadiyeen ka bacdi nin baa ku dhintay meesha shilkii intaas ay ahayd shilkii dhacay. soo kale waxa ciidanka Jubbaland soo bandhigeen Cabdullaahi Cali Cabdulle oo ku magac dheer Muud Barakow waxa uu qiranayaa in fil dil ah uu geystay 48 saac ka hor kaas oo uu ku dilay Allah u naxariistay dable ciidanka Jubbaland ka tirsan oo la oran jiray Maxamed Cabdullaahi Ibrahim. xilli habeenimo ah ayuu falkan dhacay waxaana laga qaatay qorigii uu watay kadib markii dhaawac xagga madaxa ah loo geystay ka hor inta aan xabad la dhicin marxuumka geeriyooday. Muud Barakow ayaa isna ka hadlaya sida uu falkan u fuliyay ee sida ay ciidanka amniga Jubbaland u soo qabteen. howlgalka aan ka fulin rabay aan tagay gurigii markaan u dhacay ee aan mataqaanaa ku gudbay waxaan u tagay askari jeef oo hurdaayo howlgalkan uu ku socdo marka waxaan sameeyay isla ninkii waxaan sameeyay birti baan ku dhuftay birti markaan ku dhuftay oo aan markaan ku dhuftay oo haddana aan ku dhuftay 3 mar aan ku dhuftay aan qoriga ka habtay qoriga markaan ka habtay oo dhaaqay askarigii oo daba carara ay wada imaado 3 xabban ku riday 3 xabban markaan ku riday ka dambo haddana waxaan sameeyay dilbigan ka booday dilbiga qoriga ku tuurtay ka booday markaan ka booday waa cararay xabadaha igu soo dhacay weefta oo hormuud laga soo riday sadooqa kale oo qaraxa uu ka dhacay miya ma aqaan. raggan waxaa la soo bandhigay 3 qori ay falka ku fuliyeen oo 2 kamid ah ay yihiin hubkii ay wateen ciidanka ka tirsan xoogga dalka iyo sidoo kale qorigii laga qaatay askarigii la dilay ee lagu soo qabtay Muud Barakow isagoo gacanta ku haya. Muud Barakow waxaa la soo qabtay 2 eedeysane oo sidoo kale lagu kala magacaabo Fuaad Maxamed Yuusuf oo loo yaqaan Dooli iyo Cabdiqaadir Daahir oo la socday marka uu falkan dilka ah u geysanayay. taliyaha ciidanka booliska gobolka Jubbada Hoose gaashaanle dhexe Maxamed Naasir Guuleed Xasan oo shijiraad qabtay ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgaladan lagu soo qabtay raggan waxaana digniin u diray dadka sameeya falalka amniga lidiga ku ah. waxaan rabaa inaan saaka halkan ka sheego dhacdooyin maalmihii u dambeeyay ka dhacay magaalada Kismaayo ama dowlad goboleedka Jubbaland dhacdooyinkaas oo ah dilal ay geysteen niman dambiilayaal nimankaas oo kala ahaa waxaa 27 bishii 11aad 19 magaalada Kismaayo lagu dilay Allah u naxariistay ex dable Siyaad Maxamed Cumar 29 jir ahaa ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda dowlad goboleedka Jubbaland waxaana dilay dable Cabdi Maxamed Makaawe
iyo bakar xasan jimcaale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed labadooduba midna wuxuu ka tirsan yahay qeybta 43aad midna qeybta danab labadaa dambiile ayaa dilay iyagii hubkii ay ku dileen bana gacantaanu ku haynaa waxaa kaloo dhacday 7 bishii 12aad waxaa isna la dilay ex dable maxamed cabdulaahi ibraahim 28 jir ahaa ka tirsanaa ciidanka booliska dowlad goboleedka jubbaland waxaana dilay cabdi cali cabdille oo muud barako ku magac dheer isagiina waan qabanay 2 nin oo caawinayay oo kala ah fuaad maxamed yuusuf oo doole ku magac dheer iyo cabdi khadar daahir oo kidhooga ku magac dheer oo 2 nin ee dambiilaha caawinayay iyagana waan qabanay dhammaan dilalka kiisaska aan idiin sheegay intaba waxaa lagu dilay ragga isaga ah 2 askari waxaa lagu dilay xabad nool waxaa si gaar loo gaarsiiyay dhaawac inta aan la dilin maxamed allah u naxariisto xabadda uu ugu horeeyay dhaawac muxuu ahay bir ama toorey ah oo madaxa iyo gacantaba lagaga dhuftay axmed maxamuud jaamac warbaahin dowlad goboleedka jubbaland kismaayo